Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada janalkiina maasha Allah. Halkan waxaa idinka faa'iideyn rabay oo aan ka faa'iide insha Allah biidnillah. idinkana waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidiin haddaad sidaan sameysiin oo rabtiin caruurtiina inay caafimaad idin helaan. Caafimaadka Ilaaha bixiyo, laakiin caafimaadkooda maskaxiyan oo dhismaan, jismiyan oo dhismaan, ilmahaaga ilmo qurux badan kaaga soo baxayo oo aadna u fiican oo maasha Allah ah. Waxyaabaha tahay waxay tahay marka hore waa inaad ka joojisaa cuntooyinkan jungle foodka ama cuntooyinkan oo la shiila ha ahaato sida jibsiga, krebiska, bacooyinka waxa ku jiro, juuska, soodhaha, cabitaanada oo adisa jalaysan oo dhan inaad ka mamnuucdo waa cunugaaga caafimaadkiisa. Haddaa rabtid cuntooyinkan kale aad ka mamnuucayso waxay tahay krebiska sida fryka waxa la shiilo dhan oo sida lagu dubayo oo sida jibsiga camal ka mamnuuc oo mukul dhahay forever ha siinin, laakiin at least marmar qaar sii oo bishii hal mar ama sii, laakiin mar walba ha ugu dhigin quraac ama qado ama casho cuntooyinkan oo la shiilay iyo waxaas krebiskan iyo juusaskan banaanka baakadaha laga soo gaday iyo waxaas dhan cunugaaga caafimaadkiisa haddaa rabtid ka jooji. Cunuga quuma xanuun, calool xanuun, blood infection, waxyaabo badan cunuga isbedela. Camalkiisa wuxuu noqonayaa camal high ah. Camalkiisa macnaha waxaa waaye dabeecadiisa hataa too much high noqonayaan. Maxaa yeelay waxyaabahaas zaaid jirkiisa ugu badanayo, marka caafimaad ahaan uma fiicno. Laakiin waxyaabaha cunugaaga skinkiisa iyo jirkiisa caqliyan iyo asigoo dhan ku dhisaayo oo qurux kaaga dhigayo, caafimaad ahaan u fiican yahay. Waxay tahay waa inaad u badisaa number one fruitka iyo vegetableka, qudaarta iyo fruitka. Labadaas waa cunugaaga inaad u badisaa. Meeshaad adiga ugu soo gadi lahayd aroortii cunuga markuu iskuulka aadayo aad ugu soo gadi lahayd dhalooyin ama caagag juice ku jiraan oo aad u dhigi lahayd snacks ama krebis aad u soo gadi lahayd, lunch boxes aad u geli lahayd cunto nadiif ah oo gurigaaga aad ugu hagaajisay. Intaad u sameysid canjeero yar ama canjeero pancake ama malawax ama waxa adiga gurigaaga ugu sameysay ama sandwich yar intaad u sameysid ama mandazi hataa okay waaye. Guriga intaad ugu sameysid fruit ugu dar, juice fresh u shiid ama caano ugu rid. Wallaahi cunugaaga wax badan ayaa isbedelayo caafimaadkiisa maasha Allah. Especially fruitka ilmaha ha loogu dadaalo, oranjada, tufaaxga, cananaaska, cuntooyinka vegetableka, salarka. Waxaa dhahaysaa ilmahayga ma cunayaan, ilmahayga ma iga cabayaan. Waxaas aday kugu xiran tahay. Marka caruurtaada ilaa iyo markay yaryihiin 6 bilood ay bilaabaan cunto cunis ilaa 3 sano ay si fiican ugu soo aqliyeystaan, maalintaad ku bilowdid fruit aad bartid oo vegetable aad bartid, qudaar aad bartid iyo fruit la cunaa aad bartid, cunugaasaydi hadhow la qabsana. Laakiin maalintaa bartid cunugaaga markuu yaryahay inaad siisid juusaskan oo caagaha ku jiro iyo horta juuska number one caafimaadka uma fiicno. Quumanka ay ku kiciyaan, qunfac cunug kama baxaayo, jiri kama baxaayo. Laakiin maalintaa bartid fruitkaas bartid iyo vegetablekaasaydi hadhow ku aqliyeysana wuu ku weynaana. Midda kale ilmaha markay xanuunsan yihiin cunto igama cunaayo, krebis aan usoo gadaya, waxaan usoo gadaya wuxuu jecel juuska baakada uu jecel yahay aan usoo gada. No, ka jooji please. Caafimaad adaab sii cunugaaga xanuun ku sii ridaysid. Markuu xanuunsan yahay fruitka ugu dadaal, especially oranjaha, tufaaxga, cananaaska, krebiska, canabka, strawberry fruitka ugu dadaal. Waxaa kaloo ugu dadaashaa yogurtka. Cunuga waxaa jirto caafimaadkiisa u fiican oo korinayo oo caafimaad. Laakiin maanta markaad krebsi iyo
wax baakado ku jiro iyo aa usoo gadgadid iyo buskud qashin ku aruurisid oo banaanka kasoo gadid caafimaadkiisa hore ugu sii daraya wuuna kaaga sii xanuunsanaya. Marka insha Allah haddaa videogan ka heshaan subscribe iyo dhaha like share comment insha Allah videosha noo soo badin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.